بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، إن شاء الله وحين بلاونا اسمه تمركينا محاضرة ذي قيبتي السدحات. ومحاضرة ذي عنوان كذا وحاوي بربرك لمانا محاكينا وحنك سود بينا إن شاء الله الشيخ. وحنقول درا محل وحي السؤال وراقة دل قيبين دونا إن شاء الله. لكن سؤال وحلقة جواب بعد العشاء ودي لأنه سؤالهن إنay noqdaan wax quseeyo saddexda afarta muxaadaro oo shalay maanta ay baxayaan marka wixii kasii baxsan su'aalahaasi waa warqad durdaarna insha Allah. marka muxaadarada cinwaankan waxay noqonayaa burburka lamaana maxaa keenay. waxaan ku soo dhaweynaa sheekheena Sheekh Abu Talha falyatafadal jazakallahu khayr. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ما بعد، أدنا وفرح سنة هاي كلن كان كلن كيس ضحات مقالة بوروس المانتا أن وداقنو إن شاء الله تعالى هذا الليلة هذا موضوع على مقع بحي maxaa keena ama waxyaabaha keena burburka qoysku ama lamaanuhu waa meesha ay noloshu ay ka guntanto. markii nebi aadam la abuuray ilaahay wuxuu u sameeyey subxaanahu wa tacaala lamaanu u sameeyey hooyadeen xawaa. wixii intaa ka dambeeya bulshadu waxa ay ku taranto ay ku badato waxa weeyaa waa lamaano isguursaday weeye. waana sunnatul anbiyaa, waa sunna min sunani anbiyaa illaahi subxaanahu wa tacaala in la isguursado oo la tarmo oo reero la dhalo, carruuro la koriyo. nabiguna calayhi salaatu wassalaam waa nagu boorriyey guurka inaan guursanno. kolba galabtaan kaga hadli doonaa dhallinyarada, mawduuca dhallinyarada oo magaciisa la yidhaahdo dhallinyarada guurka maxaa ka hortaagan ayaan kaga hadli doonaa. laakiin darsigeennana caawa ama galabta wuxuu ka hadlayaa waxyaabaha keena burburka qoyska. insha allahu tacaala qodobo dhowra ayaan idinla wadaagi doonaa, iyadoo ku ficnayda inaad aragtaan, laakiin ay suurtagal noqon weyday inaad ila aragtaan iyadoo suuro leh. laakiin qofka raba waan siinayaa muxaadarada USB hadduu keensado waan siinaya insha allahu tacaala haddii la yidhaahdo rag iyo dumar intaba. waxaan isleeyahay waxyaabaha keena burburka qoyska waxaa ka mid ah doorashada hore oo aan lagu salaynin shareecada islaamka. waxaad ogtihiin inood ka warqabtaan shareecadeennu wax walbay ka hadashay, xataa musqusha qaabka loo galo. yuhuudi baa xataa isweydiisay oo tidhi, oo nebigiinnu calayhi salaatu wassalaam ma wax kastuu idiin sheegay xataa musqusha sida loo galo? cumar wuxuu yidhi nacam, nabigannagu wuxuu noo sheegay wax walba xataa sida musqusha loo galo. qodobka koowaad marka waa maxay? doorashada hore oo aan lagu salaynin, gulna looga dhigin qaabka ay shareecadu u qaabaysay. shareecadu waxay u qaabaysay dumarka marka laga hadlayo
wuxuu nabigu yidhi calayhi asalaatu wassalaam tunkaxu almar'atu liarbacin dumar afar arrimood mid unbaa lagu doortaa yacni dumarku afartaa kama dhexbaxaan weeye ama waa sidan ama waa tan ama waa tan ama waa tan imaa in lagu doorto xoolo oo rag baa iska jecelun islaamtu inay lacag leedahay rag baa iska jecel ilaahay amarkii sheekhow islaam garoobahoo meel degan oo 5 carruura lahoo lacag ay u soo dhacdo 3 biloodkii ii soo raadi buu ku leeyahay maxaa kuu diiday inaad mataqaanaa mas-uuliyadda qaaddo oo adigu aad reerka wax u dhisto oo adigu xoolahaaga la cuno oo maya sheekh wuxuu leeyahay marka rag baa un kaba helaba maxaa la yidhahdaa islaam xoogaa lacag haysata rag baa waxay u guursadaan gabadhu inay dhaban leedahay oy qurux badan tahay gabadh kastoo qurux badan waa tiisi ma la qabaa may kaasuu ku bilaabayaa waxa uu xeerinayo waa quruxda ragga qaar baa waxay eegaan qoyska ay ka dhalatay ay ku doortaano dhahaan qoys geesi ah qoys deeqsi ah qoys ahlu sharaf lagu yaqaano ma aha sida ay soomaalidu qoyska ay u yaqaanaan soomaalida dulmiga ay galaan baa waxay ka mid tahay ummaddanoo ilaahay ka uu beeray oo nebi aadam ka soo farcantay in intii la weel duwo oo la takooro in la yidhaahdo kamana guursanno mana naga guursadaan taasi shareecadeenna asal kuma leh waana dulmi waana gardarro waana xadgudub waana ciqaabkeedana ha ka dheragto soomaali maanta taa marka kama hadlayno markii lagu leeyahay weli ahalkeeda markii lagu leeyahay waxaa laga wadaa dad ahlu karam iyo deeqsinimo iyo ahlu sharaf lagu yaqaan baa laga wadaa ayaa gabadha lagu dooran karaa midda ugu dambaysa waa diin dardaaran buu marka nabigu raaciyey calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi nimow war nin yahow dumar afartaa unbay ku wareegaysaani midda diinta la dooro haddaad diin wax ku dooran weydo carradaad cuni doontaa aywa taribadeedaag uu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam su'aal baan isweydiinaynaa maxaa diinta loogu dooranayaa aanse raaciyo ninka waxa lagu dooranayo idaa jaa'akum man tardawna diinahu wa khuluqah haddaad idin yimaado nin diin iyo akhlaaq leh fiiriya raggaa lala hadlayaa ee gabdhihiinna ha u diidina ha ugu diidina inuu yahay reer hebel ha ugu diidina inuusan wax badan haysanin arsaaqaddu ilaahay baa bixiya weliba khaasatan markii meelahan la joogo maca alasaf dad baa weli hurda weliba hurdo aad u dheer ku jiro khuuro la socoto meesha la jooga lamaba yaqaanba caawa hadday gaal raacdo waxba uu ka qaban karo wuu og yahay inay waxba uusan ka qaban karin gaal hadday raacdo caawa waxaase laga yaabaa wiil soomaali ah inuu u diido gabadha oo uu yidhaahdo isma guursano reer hebel way dhacdaa waxba ma haysto dadka meesha joogo dhan baa waxba haysan oo qaxooti ah wuuse shaqaysan doonaa way shaqaysan doontaa adiga laftaada odayga ah xaaskaad gabadhan ka dhashay markaad guursanayso waxaa laga yaabaa in re'abtiga ay kaala kuu keeneen ooda waxba haysanin baa laga yaabaa allana waa ku barwaaqeeyey maxaan oga jeedaa waxa la isku dooranayo waa diin iyo akhlaaq marka diintu xaggay kugu xidhaysaa allah subxaanahu wa tacaala akhlaaqdu maxay kugu xidhaysaa labadan qof ee isla nool qaabka u wada noolaan lahaayeen ayay akhlaaqdu ayaduna hagaysaa akhlaaqdu waxay qaabilsan tahay labadan qof qaabkay u wada dhaqmi lahaayeen diintuna waxay qaabilsan tahay sidii ilaahay loogu dhowaan lahaa oo loo cibaadaysan lahaa haddaad fiirisaan marka qoysaskeennu meeshay ka dumaan hadda waa labada ilaahay oon siday tahay loogu xidhnayn iyo labadii qof oon akhlaaq iyo dhaqan wanaagsan iskula dhaqmayn qodobo muhiim oo kalaad idinla wadaagi doona haddii alla yidhaahdo marka waa doorashada oon marka hore la wadaajinin taasi khalad weyn baa ka yimaada ayaa tukada waxaad maqlaysaa inuu laleeyahay
sheekhow ninkaygu ma tukado islaantaydu ma tukato dee dhibka halkaasuu ka imaanayaa salaad la'aanta dhibku wuxuu ka imaanayaa cibaado la'aanta in la isku mashquulo wuxuu ka imaanayaa in ilahay kitaabkiisa lagu mashquuli waayo oo sunnada nabiga lagu mashquuli waayo sal slam waxaan kula dardaarmayaa cidda guursanaysa hadda gabadhaad guursanayso inaad diin iyo akhlaaq ku doorato adiguna aad noqoto nin diin iyo akhlaaq leh waxbaa kuu badbaadaya kaasi waa qodobka koowaad oo keena burburka reeraha qodobka labaad labada qof oon isbaran iyagoon is aqoon ayagoo kala duwan baan rabaa inaan dhaho labada qof oon isbaran ayagoo kala duwan qodobka wuxuu iga baahan yahay inaan si qiimo badan aan miiska isula saarno dhallinyaradana galabta waa u tilmaami doonaa haddii la yidhaahdo qofkan aad nolosha la wadaagayso waxaa laga yaabaa maya xaqiiqo ah haddii inaydan is aqoonin isku si oo maydan soo korin waxaa laga yaabaa adu inaad ku soo kortay guri barwaaqo ah waxaa laga yaabaa gabadhu inay ku soo kortay guri faqri iyo gaajo ah isdaba mari cagsigeedana way noqon kartaa waxaa laga yaabaa gabadhan inay ku soo kortay guri la koolkooliye ayada adiguna aad ku soo kortay dhagax jebin waxaa laga yaabaa inaad ku soo kortay gabadhu ku soo kortay ama ku soo kortay adigu guri aad u degan aabbiyo hooyo wax garanaya nolosha wax ka fahamsan guri raaxo badan guri aan buuq iyo qaylo lahayn waxaa laga yaabaa midkiin inuu ku soo koray hooyo iyo aabbo habeen iyo maalin aflagaado iyo cay iyo qaylo iyo boolis la iskugu yeedho noloshaa inaad ku soo kortaa laga yaaba qof walba wixii uu ku soo koray buu hadhowta meesha la imaani labadii qof mid baa laga yaabaa inuu caqli badan yahay midna waxaa laga yaabaa in laga caqli badan yahay waa doqon ma dhahayo laakiin inuu kan ka caqli badan yahay suurtagala labadii qof waxaa laga yaabaa mid baa xanaaq badan oo caro badan waxaa laga yaabaa mid baa laga yaabaa inuu aad u degan yahay oo haadi yahay labada qof waxaa laga yaabaa inuu mid xanuunsan yahay midna uu caafimaad qabo la isma weydiinin wax lagu magacaabo jacayl baa meesha yimid aan gadaal kaga hadli doono lagama wada hadlin waxaan idinkula talin lahaa dhalinyarada ogaada shalayga aniga muxaadarada culaad wix 40 ka yaro ragga meesha fadhiya wada dhalinyaro intooda badan saasaan u jeedaa dhalinyaro gabdhaha aad hadda odayaal ma aha dhalinyaro caawa markaad gurigaaga tagto gabadha way maqlaysaa hoos bishoon gabdhaha isku daya caawa markaad guriga tagto waxaan bixin doonaa muxaadaradani furayaal in la isticmaalo loo baahan yahay haddaad isticmaali weyda adiga iyo halkadaada hadhowta ha ooyin laakiin waxaan rabaa inaan furayaal muhiima ku siiyo waxaan rabaa caawa markaad guriga tagto carruurtuna seexdaan guriga in la soo dhigo miiska in la soo saaro biyo cad iyo qudaar gabadhu quruxdii habeenkii ay arooska ahayd sidii ay u qurux badnay inay iska soo dhigto ninkuna sidii uu habeenkii arooska ahayd uu iska soo dhigo qalin iyo bugna la soo qaato la yidhaahdo qof walba waxaad soo qortaa waxa aad jeceshahay ii soo qor haydhihin 30 sanaan isqablay sheekhow hadda caawad u baahan tahay waayo 30 sano haddaad isqabteen 30 sano ka hor wixii dhacay baa guriga weli dhex yaala waagii aan halkaa joognay waxaad igu tiri yaa weli tahay in la yidhaahdo ii soo qor waxa aad jeceshahay adu maxaad jeceshahay qor waxaad jeceshoo dhan waxaad raacisaa waxaad neceb tahay wallahi waa furayaal wey xaqiiqa waa furayaal muhiima qofka arrintaa ka faa'iidaysan doonow waad arki doontaa natiijada ay leedahay wax alla waxaad necabtoo dhanna qor waxaad dhibsatay ii sheeg si aan kaaga ilaaliyo
waxaad jeceshay ii sheeg si aan kuu siiyo ha soo qorto gabadhu adiguna soo qor isbedela warqadaadii qaado warqadaadii ayada sii warqadeedii adigu qaado aqri isku dul aqriya maxaad ka carootaa adu maxaad ka carootaa cibaada la'aan baad ka carootaa maxaa kaloo ka carootaa adoo malag matiida aduu malag matid laftaadu waa lagugu arki karaa waxaan la raalli ka ahayn akhlaaqda igala hadal akhlaaqda dhaqanka akhlaaqda maxaad ka carootaa hal mid ii sheeg tamaam baaraka allahu fiik مثلا ninkani sheekha wuxuu yidhi waxaa jaabir wuxuu yidhi waxaan ka caroodaa oo necbahay buu yidhi nadaafad xumadu qaybo badan bay leedahay nadaafad xumadu waxay noqotaa guriga nadaafad xumadu waxay noqotaa jirka nadaafad xumadu waxay noqotaa dharka nadaafad xumadu waxay noqotaa bii'ada nadaafad xumadu wax lagu cunayo nadaafad xumadu wax lagu cabayo ayay noqotaa jaabir marka waxaan u baahnaa intuu ciil u dhiman lahaa inuu islaantiisa u sii sheego oo yidhaahdo anigu oo qoro anigu nadaafad xumada ma jeceli maalan tusaale ahaan waan necbahay nadaafad xumada waa xaqiiqo wey waxaan rabaa ninkani maxaa kaa cadhaysiiya maalan maxaad necab tahay maxaa kaa cadhaysiiya haddaad cadhooto maxaa ku dejiya ragga iyo dumarku ogaada inay kala dabeecad duwan yihiin dumarku suuqay ka helaan raggu suuqa kama helaan weligaa islaantaada suuqa ma isu raacdeen kadibna dukaanka waxa yaalla ma soo aruursatay alla kana guri waa ka maqnaa alla kana jikadu ka maqnaa alla kana caruurta kabaheedii alla kama midkan adiga waad yaabantahay madaxa ku xanuunayo raggu suuqa kuma jiri karaan saacad jawiga iyo buuqa iyo qayladani wax isdabamar raggu way ku wareeraan dumarku waa bunkoodii suuqa dumarku suuqa wayba ka helaan 5 saac ay ku jiri kartaa gabadha suuqa diracan fiiri alaabtan fiiri kan fiiri shaqadooda wey la isma fahamsano oo hadhowta gabadhii waxay leedahay markuu dhana ila keen waa suuqa ku fogaanay waxay leedahay horta aan ima jeclid waayo mar alla markaan suuqa aan imaano naftaada ii keenta maya wuu ku jecel yahay dabeecadda raggan suuqa jeclayn waa in la isfahmo marka koobaad marka ninka waxa laga yaabaa inay soo adeeg markaas wuxuu dhihi waxaan soo gaday xagee yaalaan markuu leeyahay xagee yaalaan dukaanku rabaa meeshuu yaalo inuu u soo qaado soo carbo waa in horta la isfahmaa dabeecadka waa la isfahmaa furiinka badan maxaa keena inaan la isfahamsanayn waxaa laga yaabaa inaan anigu ninkii markaan ahay inaan dhaho anigu haddaan cadhoodo waan baxaa masaajidkan aadaa raggaan u tagaa waa la soo shaah cabbaa caawa anigoo faraxsan ayaan ku imaanayaa saa oo la soco iridda hay istaagin ifur hay dhihin kulliyatiga hay qabsanin haddaan cadhoodo waa la idaayaa saasaa la isku waafaqaa marka gabadhi marka way ku daynaysaa way ku daaweynaysaa waayo daawadaadii bay rabtaa ayadu innaga wad aragteen haddaan waxaan la garanin ifur bay dhihi gabadhi waxay ku tiri haddaan cadhoodo anigu gurigaan galaa waan isduuduubaa waan ooyaa naqaskaa iska sii daayaa alaabtaan jajabiyaa shaqadaan ku dhaqaaqaa dumarku waa 5 midun hadday cadhooto ama way isduuduubi albaabkay xidhani ama way ooyi ama qaar baaba shaqo ku dhaqaaqi ama maxaa la yidhahdaa qaar baa buuqi oo qaylada mataqaana iska sii dayni way fara badan yihiin midba waa si gabdhuhu waa si mid baa telefoon qabsan oo saacadda waxay la hadlaysaa wax alla wixii mataqaana qofka ugu dhowaa ayay naqas ku sii dayni adigu markay xaaskaagu cadhooto oo ay ku dhahdo anigu waan buuqaa aamus marka adigu shib adigu weliba dariishadaha hadday xidhan yihiin soo xidh dariishadaday furan yihiin weliba tv hadduu daaran yahay dami ninkaa darsiga si fiican buu fahmay lianna qosolka macnaheedu waa maxay darsiguu fahmay way ku socotaa
سائل الصعود حاصل هذا اوكي هذا دارسنت لكن هذا دارسنت ان شاء الله محاضرة iyo tagaabta marka isku darsato baabuurta oo kala xil dirdir habbuuqda islaamtu ha qayrido mar xagga ha ku dhaafto mar xagga ha ku dhaafto ayada degi way isku ogeydeen markii hore isbarashadu marka waa shay muhiima isbarashadu waa shay cajiiba ninka iyo xaaskiisa isbarta maxaad cuntaa adigu weligaa ma weydiisay xaaskaaga maxaad cuntaa maxaad cuntada maxaa ka jeceshay hadda weydii caawa weydii u qoro waxaad adaa cuntada noocan baan jeclahay noocan baan jeclahay noocan baan jeclahay noocan baan jeclahay ay kuu dadaalaysaa gabadhu ayuu gabdhaha Soomaaliyeed dadaal badan yihiin waxaad jeceshahay iyo waxaad necabtahay isha waa qodob runtii aad muhiim u ah oo aad iyo aad u dheer haddaan la isbaranin oo dabeecadda la isbaranin guriga waa dima marka xaqiiqo weeye qodobka saddexaad jahli lagaga jiro sideedaba xuquuqada lamaanaha isku leeyihiin waxaan koorso yar oo nadaafad ah hadduu qofku uu doonayo musqulo inuu waddanka dhaqo muxuu u baahan yahay inuu shahaado u haysto inuu koorsadaas yaqaano inka dariishadahaas tirtiraya muxuu u baahan yahay inuu shahaado dariishada tirtirida inuu haysto ma u maleynaysaan reer dhan oo dhismaya oo aan xuquuqdeeda la garanaynin oon reerkani ninku muxuu leeyahay gabadhu maxay leedahay maxaa la wada leeyahay aan la aqoonin markuu ku soo wacayaa ninkii wuxuu leeyahay sheekhow islaantii baan furay ayadoo caado qabta yaa furku yidhi islaan caado qabta yaa ku yidhi fur islaan caado qabta yaa ku yidhi fur gabadhi waxay leedahay sheekhow odaygu waa isku rafaadnay mawduuc kalaan kaga hadli doonaa markaan kaga hadli doono guurka iyo noocyadiisa guurka duulduulka iyo guurka argoosiga iyo mataqaanaa khiyaanada qarsoon iyo guurka markaan qaybin doono ayaan kaga hadli doonaaye sheekhow ninkii wuu idhibay oo inkaar buu qabaayo waxaa weeyaan ninkii wuu ifuray ciddadayduna waa 3 bilood intaa waxaan go'aansaday inaan nin si shukaansaday ku leedahay سيد من وش كان سنقطع عدة بتكون شفتها سيد وش كان سنقطع وإلا برتو واحد لإسكولي هاي قبله واحد يقول هذا هاي أذوق واحد هذا هاي هي واحد ولا لذهين وإلى اللي بدينا البرتان حقوق هذه الجهل اللي قد شروا ولا أقولين هيك ودوبية حقوق وبنته حقوق السرير تاع كمده لبدا قف حق إسكوليين حقوق السرير تاع كمده حقوق النفقة كاملة حقوق هذا الكمعان هي وضع هذا الكي شيكيسك أيها كاملة قضب كانوا قضب كسدحاد وقضب مهيموي قضب كريرها الجميع وحاكملة لباتوين كنقالة علماء الله هالمرة يسمى أنت فرير بعد سنة جاي هي رب ضمن بقى الله وحيكون الدبان محالي هذا نقالة يرؤى لسوق بسبب أرير بعدين شيء يا عاون حديد يا أبي حاسك يتدور فريستان إن الضهدان محنا صوقلا سيدي هذا محنا صوقلا وحنا صوق الشل عشان يتبون كنا لباتن كنا كرون العقدنا مثلا لباتن كنا عنده شقادي بركة الصدر لباتن كنا كرون بنصوب قولي إيجار كي سوى ميقا ولا يقان كرون تدي سوى ولا يقان محل إلى هذا waxaan telefoonada iyo waxaan la bixinayo TV-yada guriga waa la yaqaan waxa soo dhan markii xagga la dhigo ila ila reerkan biil maxaa ku filan intaas aan ugu filan maxaa soo haray maxaan ku darsanaa qaraabadayda iyo qaraabadaada yaa daran labaduba way daran yihiin maxaa naga go'a intaas naga go'da waanu goynay caruurteena maxaan gelinaa dugsiyada iyo waxbarashada iyo tuushinada waxaad maxaan gelinaa intaas aanu gelinaynaa maxaa soo haray waxa ma soo haray marka runta sheegno xabad ma soo haray waxa runta sheegno waxa laga yaabaa 3 biloodka iyo waxyaalaha ciyalka loo soo diro in ziyaado ay noqoto saas maaha in la yiraahdo waxaasna haweenka ku fiican ayuu ta aan ku gallo haye inay carruurta waxan lacagta ma baliidin deedo waa diinta lacagta ma balaaba والدين تعال عرورت أسكال إلا يلاهدو لعبت نوع عصا أيوتا أنو قال له أنو مالو دقنا عيال كين مستقبل كودا نوغو سامينو كدبنا لا اسكو وافقو
waxa la samayn doono islaamiga waxay leeyihiin sheekho waxaan aruuriyey oon ayuuta galay odaygii intuu mataqaanaa iga qaaday oo yidhi business baan ku samaynayaa iyo islaamkana kusoo guursaday waa arrin waaqicoo taalla wey marka lafteeda waa in laga sheekeeyo oo la yidhahdo lacagtaan aan aruurinayno maxaanu ku qabanaynaa carruurteennaa leh waaba dhammaatayba hadday soo hadho 1,000 karoon iyo 1,000 karoon in la yidhaahdo haddee nin baa tahay adigu rag baad shaah la soo cabaysaaye nin weyn oo jeeb maran waa laga wanaagsan yahay darti 1,000 kaana suuqa adigu ku galo ragga shaah la cab oo shaah u soo shub adiga laftaada haween badan baa kugu xidhanoo kuu imaanhayo oo wax degdegaad u baahnaan kartaayo ilmihiiba habeen barkii lagu soo boodi karaayo shaqo anoo ku maqan baa taxi qaadan kartaayo bal adigu waxaan waa la qorsheeyaa maxaa yaala wax la isku khilaafay waa ceeb wax la isku khilaafay meesha ma yaal waa wax yar oo sandareera oo qaxootinimo naloo siiyey wey marka qodobka dhaqaalaha arju inuusan reerkeenu u burburin ama reeraheenu u burburin intii laga wada fadhiisto in la yidhahdo war waxaana soo gala shaqo ahaan nagu soo gala cayn ahaan nagu soo gasha aan qaabka nolosheenna u qaabaysano biidnillaahi tabaaraka wa tacaala qodobka shanaad oo reeraha burburiya daal badan oo aan garowsho lahayn daal badan odaygii wuu soo shaqaynayaa taxi buu saaraya matalan hooyadii waa hooyo iyo hawsheed hooyadu waa mucallimad hooyadu waa dhakhtarad hooyadu waa kuug oo jikadii bay geli hooyadu waxa weeye ayadii baa ilmaha sii qaada ayadii baa keenoo waa darawalad hooyada shaqo badan ba u taal ayadoo isla cid kaa daran lama arko odaygii markuu yimaado caawa oo uu kula yimaado carruurta ha kula qabto oo ha kula seexiyo sooma oo ayadiiba ay daal tirsanayso ayaa odaygii baa shaqada ka imaanaya markaasuu ilaahay cid kaa daran adiga ma lehe islaantii maantooda guriga iska joogtay kollaba markaa tagto biyo kulul bay lugaha kuu gelin doontaa intay saa kugu seexiso sariirta ayay masaaj kuu marin doontaa bisle waa laba kala baride kala warla odaygii sibuu mataqaanaa asagu daal u tirsanayaa islaantiina siba iyadu daal goona u tirsanaysaa waxaan u bixiyey daal badan oon garowsho lahayn laakiin reero badan buu dumiyey daalka noocana oo uu ninka ilaahay adigaa daalan islaantii uurku wixii la rabay uu qaban weydo waa xanaaqaya islaantiina waxay leedahay aniga lama caawiyo ninku ima caawiyo waxba ima qabto wuu sii ordaa fadhi ku dir buu aadaa masaajid buu aadaa xag buu aadaa habeen barkii buu imaadaa annagoo daalan arrintan marka anu xal baan u keenay xalkaan u keenay waa basiid jiddan waa furayaasha maanta furayaasha aan bixinayn ogoo lacag maa la socdaya waadayaado wax innaba idinkuma fadhido keli ah inaad qaadataan ood ku dhaqantaan weeye waxaa laydinka doonayo maanta markaad suuqa jirto oo aad shaqaynayso maxay kula tahay xaaskaadii inaad telefoon u soo dirto maxaad u malaynaysaa oo dad assalaamu calaykum wacalaykum assalaam ma fiican tahay haa xabiibtii mataqana macnaheeda ragga waxaan rabaa inaan dhaho islaantaadu magaceed cawralaa magacaan ku sheegay magaca ay islaantaadu leedahay ma ii sheegi karta yaa u bixiyo aabaheed adu siday kugu soo wareegtay wax magac ma u baxsatay gabadhu siday ninkan 20 jirka ah uu ugu soo wareegay iyadu magac ma u baxsatay waxaa idinkula talin lahaa magacyo u baxsada xaasaskiina qurqurux badan oo markaad ugu yeedho qalbiga loo dhaafayo oo ay dareemayso ixtiraam iyo qadarin iyo jacayl gooriya inaad u hayso cawrala aabaheed ba u bixiyey iskiilow adigu magac yar oo macaan adaa garanayee ya u baxso adugu laakiin macnaha uu xumbaarsan yahay jirkeedoo dhan uu dhex xuli doono oo ay macno weyn ka fahmi doonto magacii intaad ugu yeedho waxaad dhalaa waxaan rabaa maanta inaan shaqada ka soo tago yaabaysaa soo waxay leedahay maxaa dhacay oo shaqada uga istagaysaa ma dhib baa jiro ma xanuunsan tahay may adaan kuu xiisay waxaan rabaa daalka inaan la qaybsado may adaan kuu xiisay aragtidaadaan u xiisay
inaan soo noqdaan doonaya maanta waxaan kuu ballan qaadayaa maskaxdeeda waxaad gashatay maxaan ku magacaabaa waxaad maskaxdeeda gashatay wax markii aan eego ay ku shaqayn karta 20 sano dambe waxaad maskaxdeeda gashatay wax daalka ka baabi'inaya waxaad maskaxdeeda ka saartay waxa ay markii hore ku fikiraysay oo ah adigaa daalan adigaa rafaadsan waxaan kuu sheegayaa inaad qof kale guriga ugu imaan doonto aan ahayn qofkii aad markii hore guriga aad ugu imaan jirtay labiskeeda quruxdeeda cuntadeeda qosolkeeda iyo soo dhaweynteeda waa ballanay hoos ka xariiq maxaa bedelay kelimadaa yarta ah oo keli abaa bedeshay taanaa ballan kuu qaaday waxay dareemaysaa inaad la dareemayso daalka haya mar alla markaa soo gashana aad dhahdo u fiirso waa arkaa inuu daal kaa muuqdo anaase daalkaa kaa baabi'inhaye ii fadhiiso adugu xaggay hawsh kuu maraysaa hebel in loo qabeeyuu rabaa hebel in baambarka laga bedeluu rabaa hebel in casho la siiyuu doonayaa haye berri waxay qaadan lahaayeen in la diyaariyaa la doonayaa adi ii fadhiiso anaa shaqadaa qabanaya xogole maya adaa daalana adu ii fadhiiso gal musqusho soo qabayso waxaan kuu ballan qaadayaa intaad musqusho ku jirto inanay dadka guriga jooga qofka ugu yar baatay waa garanaysaa soo maaha waanu taasoo waa masalada hadda way baxday dumarkana waan u sheegnaa soo maaha carruurta guriga joogaya ugu yar ani islaan kastoo iga soo horbaxda waan weydiiyaa adeer ma fiicanta ha soo khayr maaha carruurta yaa kugu yar hadday dhahdo gabar baa iigu yar wiil baa iigu yaray waxaan dhaha may waxaa kugu yar ninka qofka ugu dambeeya la seexiyo waa asaga qofka ugu dambeeya galaaska caanaha la siiyo waa asaga carruurta qool inta lagu guro yaa dhaqdhaqaaqooda iyo shanqadhooda xataa la dhibsadaa oo dhawr bay naga seexda qofka guriga ugu yarna waa la dhaqaalaystaa carruurta qofka ugu yarna waa la ilaaliyaa caafimaadkiisa iyo cuntiisa laga fikiraa taa waa dumarka raggana waxaan ku dhahaa si fiican dhegaysta ragow dhegaysta anigu idinku jira ogow xaaskaagu ifur hadday ku dhaho waa ifaham warkaa meel ku xariiqa maanta haddayn muxaadarada wax kale ka faa'iiday ilaa labadaa nuqdo mooyee oo gabdhuhuna ay hal darsin ay qaataan oo ah macnihiisu waa maxay inay gabadhu fahamto reerka ya ugu yar inuu ninka ugu yar yahay reerka ragguna ay fahmaan ifur macnaheedu waan ku nacay ma aha ee ifur waa ifaham waxbaan kaa tabanayaa i dhegayso iga wargur weeye laakiin tabarteedu maxay gaadhsiisay inay dhahdo ifur bas kelimadaas uma iyagu ku dhawaaqaysaa rag baa run u maleeyey marka ifur ahaa waan ku furay xataa qaar baa saddexda isu raacay hal saddexda waan ku furay hadhuu jiro sheekh islaan saddex baan ku furay hadde maxaad ugu furtay haddaa furaysa xataa hal ku furay dee calal aqal saddexdii waa khatar weeye islaan saddex lagu furay si fiican waxa dhan baa hadal muxaadaro waxaa jirta magaceeda la yidhahdo carada badan caydhna way kaa dhigtaa cidlana way ku istaajisaa hadda adoo reer buuxay aha unbaa daqiiqad bannaanka istaagaysaa hadda labadaa qodob aan kala qaadano guriga dadka jooga guriga carruurta joogtay ugu yar ka jawaaba aabbaha ugu yar ragow dhegaysa su-aal baad weydiinayaaye asagaana ugu weyn dabcan isagaana ugu weyn asagana ugu yar inuu ugu weyn yahay isaga muran kama taagno shayga inuu ugu yar yahay way doonto laakiin inuu weyn yahay waa la arkaa taas muran kama taagno ragga su-aal baad weydiiyo xaaskaaga ifur hadday dhahdo maxaa laga wadaa waxaan rabaa cod kor inay ku dhahdaan faham ku celiya hadda baartobna qolyaha way maqlayaan lifeka war waxbaan kaa tabanaya ila fadhiiso waa la faham soo maa annaga hadda muxaadaradeennan aan booros u imaaday haddaan labadaa qodob kusoo gebagabayno oon dhahno wasalillahu wabaarik muxaadaradii way noo dhammaatay waxay noogu dhammaatay aan isbaranno waxay noogu dhammaatay guriga dadka joogaya ugu yar aabbaha ifur maxaa laga wadaa ifaham waxaan filayaa oon intaa dhaqan gelinno muxaadaro noo dhiman inayna jirino wixii intaa ka dambeeya waa uu iska naashnaash iyo wariisha gabadhii hadday dinkeedii intay wacdo asagoo shaqo ku maqanay dhahdo xabiibi maanta aad baan kuugu xiisay
ama asi kale u dhaho markay iridda ka soo galo inay dhahdo ma sha Allah maanta daal baa kaa muuqda laakiin waxaad ogaataa waan kula shaqayn lahaa shaqadan kula geli lahaa shaqada waan kula qaban lahaa laakiin shaqo kale ayaan ku hayay kadibna ay daalka ka baabi'iso labada qof marka daalka in la iskugu garaabo waa qodobka lixaad faragelin guracan oo qaraabada qaar ka mida kaga yimaada lamaanaha soo ma ogidiina reero duduma sabab waxaa u ah qaraabada qaar ka mida hooyo Soomaaliyeed baa waxay igu tiri wiilkaygaan gabadh u guuriyey kadibna telefoon bay u soo dirtay $100 ii soo dir bay tiri waan dhageysanayo maxay ku tiri ma ahi yaan ku iri markaasay tiri hooyo $100 bay rabtaa fur baa idhi bay tiri naagta kuma noqonaysay soo anagii biilka u diray bishan midda kale maxay tahay mar macnaha u fiirsada wiilkii sidii buu gabadhii ku dalaaqay ma aha macna xaqiiqa waa waswaas shaytaaniya marka reero fara badan ayaa sabab ugu noqda reerkoodu inuu dumo aabayaasha waxaan kula dardaarmi lahaa anu aan ku jiro hooyayaasha waxaan kula dardaarmi anu aan ku jiro kuwa waddankii jooga khaasatan waxaan kula dardaarmi lahaa gabadhi ninka kaa haya ee kaa qaba xurmo iyo xushmad baa loogu dari jiray soo saas ma aha yaan sabab looga dhigin reero badan inay burburaan raggana waxaan dhihi lahaa war bakhaylnimada iska daaya oo gabadha aabbaheed waa aabbahaaye u dir waxaad awood u leedahay soo ma oo gabdhaha ku qasbina inay sabir intay kaa gasho $100 ay meesha ka heshay dhada aabbahay baan u dirayaa liajli bakhaylnimadaada adiga qofkan waa aabbaha waa hooyada aabbaha iyo hooyada ayaa jeceshahay ana su'aal bad weydiinaa si basiida hooyada iyo aabbaha ayaa jeceshahay sheegana هذا لما هو تعشى طيب يا حق بدن هو يد أنا قاعد الله الله أنا أباي هو يد أباي ما كتشال يودي لك سابك السنة صوش كان سدي ويد هدوسن أباي هو يد صوش كان سدين أنا ما أقبل الله هدو إسكت شوقي لها مايا ولي ما مركو ويديدي ولو ديدي ويديدي ويدبس عدي ويدبس عدي صوص ما أنا ما حنوقت شيء ده أباها وأبا قبل أن أبقبته إيش أشهي هدوسن أباه هو يد صوش كان سدين ميود ما يقدر الله كان مقود على الله أبا أذكر راح يصير عرض تقول عليه أبا ياش مركو وحن ليه ورقبل أن أبقبته أباه وأباها قبل أن أبقبته هو يد هو يد هكذا خيل قبلنا إصبرت أودين إذنكم قصة لينا يا أكو قصدين قبلنا إن أي متغانا ريركم كدوا وحيرو بقول يا وحلا من تانو ودردارن أن رجع قبلها قبا أن سير بإذن الله تبارك وتعالى ريران وحن لهي يا للدومين اللي وين الدوم طلب كتضباط صاحبك حاسس كأه أنت أنا موضوع الشرح محارب أنا به اللي رجع وحلي هذا جرا أو قفكوا عانها إيو روجا إيو أباحة لو حساسيت بزما دد waxaa jira reer wanaagsan iyo qoys wanaagsan oo isku duuban oo isku fiican oo gacmaha isaysta oo hoteelada iska tagaya oo dalxiis aadaya oo suuqa markay wada socdaan adeeganaya oo nidaamkooda iyo noloshooda oo qurux badan oo fiican oo dariiqa markay socdaan isku qosla oo la sheegaysta gabadha asturan ee gurigeeda iyo ninkeeda ku mashquusha meelaha baadiyada iyo xadladaha xunxun aan tagin ninka masaajidka iyo shaqada iyo gurigiisa ka shaqeeya dad ba allergy ku qaba oo xasaasiyad ku qaba oo dhaha dadka si isku fiicnaan karaan saadaradeed u fikiraya la dhahayo ninkii leeyahay ninka Soomaarta gabadha inay sixrataan u malaynaya uu jaajaamaya way sixratay baan u malay gabadha waxa lagu leeyahay wuu duleystaa waa wuu guumeystaa kelimada fiiriya wuu guumeystaa gabadha amarta ninka wuu guumeystaa ma ogolo salaam alaykum saaxib yaani waxa weey wuu yaani waxa weey ninka wuu guumeystaa dad noocaas abaa jira sida daradeed dumarka oo kale markay doonayaan in ay maxaa leeyahay baabka soo guda galaan inta loo imaado gabadha waxa leeyahay abaayo 2 sano ka hor marka ku imaado daahankii ku xidhnaa on miyaa قبل رسالة جديدة خطر أبيداها كي لبصر كور خوي إحنا مياه بس أنا مودي
أبا يفرق وفرقي لغو أروسي بقولي كويا لميا لعقب ما خسر المياه مشكلة وين صبا قاب كنوع عاسى ورردمين مين قربان واسكودريت filimada qaar ka mid ah Soomaalidu ay samayso reeraha inay dumaan bay ka shaqeeyaan filimada reeraha Soomaalida qayb ka mid ah TV-yada qaar ka mid ay sameeyaan arrimaha in lagu baraarugo waa muhiim qodobka sideedaad iyadoo xoogga la saaro xagga xumaanta gaabinta iyo dhacdhaca culumada Allah yaa inteenan macsuum yuusuf dambi ka dhigay xaaskaaga waa bini aadam adiguna bini aadam baa tahay laakiin daqsiga ma taqaanaa wuxuu ku wareegaa qofka sababta ugu wareego daqsiga qofka ma garanaysaa meel dhacaamaysuu raadinayaa lamaanaha isqaba qaar saasoo kale ah jira meel may wuxuu doonayaa meel ceeb inuu raadiyo walidaalika baa gabadhii wanaagsanayd ama ninkii wanaagsanaa wax yar oo maba arkayaba wanaaga iyo khayrka iyo carafta iyo idgoonka iyo cuntada iyo shaqada iyo raganimada iyo caruurta lama arkayo waxa laga yaabaa ficil yar oo ama ninka ka dhacay ama gabadha ka dhacay in ceebti ugu weyn laga dhigo saadaraad maxaa uga jeedaa qodobka soo fahantaan dad waxaa jira lamaanaha qayb waxaa jira raadiyuun wixii ceeb ah iyo wixii dhaliila iyo wixii dhacdhaca waxaas baad tiri waxaasaa samaysay war haddee waa bini aadam baan ahaye bal khayrka aan sameeyey kalama arkin miya barbarwaaqadan aan sameeyo kalama arkin miya walidaalika waxaa waa in indhaha laga laabtaa hal jumlaan rabaa inaad maanta iga xifdidaan reer waxaa dhaqan kara doqon caqli badan reer waxaa dhaqan kara waana doqon waa caqli badan yahay qof caqli badan dhaho see labadaa bal iswaafaji waana doqon wuuna caqli badan yahay sidee anaa kule waa doqon waxa dhacayo dhan yaa ma faragashanayo waxyaalo badan buu indhaha ka laabanaya wax walba lama dabagalo qorqodo lama noqdo waa nin raga markaa tahay waxyaabo badan oo indhaha laga laabta baa jira ficilada ay gabadhu samaynayso oon adiga kula qumanayn oo haddaad isku daydo inaad hadda saxdo reerku kaa dumayaa jira saa daraaddeed doqon iska dhigo isdoqomeeyo waa la agmaraa waadna aragtaa caqlina waad leedahayo waxba kaama qarsoon oo wixii waad aragtaa laakiin goormada xallin doontaa waxaad xallin doontaa waqti waan sheegi doonaa qaabka wax loo xallin doono iyo goorta la xallin doono iyo saacadda la xallin doono waan ka hadli doonaa haddii alla raalli ka noqdo qodobka marka muxuu yahay dadku waa bini aadami walaa tansawu lfadla baynakum waxa wanaaga abal rabaa xoog in la saaro fiiriya idaa balaga almaau qollatayni lam yaxmil alkhabar sidoodaba biyuhu hadday qollatayn gaadhaan oo 200 oo maxaa la yidhaha liitar hadday biyuhu ka bataan nijaasta maba qaadaan ilaa inuu midab isbedelo ama lawn ama maxaa la yidhaha ur isbedelo ama dhadhan isbedelo mooyeen laakiin biyuhu markay intanoo kale yihiin wax yara ku dhaca bay ku nijaasoobaan waa masale fiqi awey إذا بلغ الماء قلتين ورهاده لبدا قفا إسخبا مركو وناقودو بطو حتى بيها ميكعي وناقودو مركو بطو وإلا اسكتور وحيالها يرير نعكر وإلا اسكي إلوبا قضب كميات فالتين قضب به موي لكن هذا هو حنقول في رسانة يا قف كانوا في رسانة يا هذا الكويلي فعل كويلي محادو سميسي قشك الماش محويا لا بامبر كان محسويا لا كان محسويا الباب كان قيقيق محولي هاي waxa sax maaha albaabka qiiqiiq la adu istaago sameeyo siriid mari waa marka qofka inuu xumaan doon noqdo ma aha laakiin wayna wanaag doon noqoto qofka khayr ku taqaanana khayrka ayaa loo eegaa qodobka sagaalaad waxaan rabaa in aad dhagaha loogu furo masayrka dilaaga ah reeraha waxaa burburiya masayrka dilaaga ah maxaan uga jeedaa masayrka dilaaga ah masayrka ragga iyo masayrka dumarku waa kala labo masayrka dumarku waa jacayl masayrka ragguna waa cudur masayrka dumarku waa jacayl waxay gabadhan u masayraysaa inaan ninkeeda lala wadaagin halkaa weeye masayrkeedu inay xad gudubto waa suurtagal
وصح حد قدم كما وافق سنين لكن وحو أصل كل سليسية يا من كان اللي يقوله ولاقي شعال بكل سليسية أي أبيك كل شعش هي إنا نكلا له ولاقي لكن رجع مصير كودوا عذر يا شك نبى وحويري أنا بقوله مركز سنقولك الصاقلة وحال دريما إنها هيجا نبى لكون كسي بودية إنها تصيا هذا نبى لكون كسي بودية أقول كم حياة وقولي هذا كثير مصيرك هو خطر شكي كويكا ويدي لا مدي كاو فربدي مصيرك ديلاقي أمرك مصيرك هو وحشرة مركو يا مصيرك ونفسن أو حمانته حاسك وغيرونيسو أما قبلوا منك إذا حمانته وغيرونيسو أما تشعيل إيش هاي هو يدا عايشة والنسين جبت حدود بولها صما أذكر إنه مصيره وواحد مش كل شروي والله أغير منك وتيو كلها طيب لكن مصيرك الدلاجة قبل غيرك أوجد مية مصيرك الدلاجة ومصيرك وقبل غيرك أوجد مو أيضا هذا يفر ومحل غفري وجور ستي وما قدر إلهي بالعلين كره الله المحفوظ ككو قرن ما تكفى إنسان كرتان حضرة إن كان كود دوبي أو مارين تمصيرك لبا مصيرك يا مارينتيس ضادنا الأحمر تي أنا يا جبل لي أم أحمد بأهل علماء بدن بالله كل مي ويقنعين وعيين أبو طلحة وحدونا يا مانت إن أنا أدينا الله فقاريه شيخ سعيد راجل سوفريسي هيا هذا أم أحمدي مركي هذا الشيء أنا يقول سؤال دورة ويدي مركي دبنا وحنكون مضوبي كرا حوار كان ها كده من التي في الناشونال تي في وعليك الدور ويكون جبتها ده جو قرطه ما رأيت مسيح نين كاجم بقي وحي تري هبل بعدها أحمد إلى أحمد بورسلي يسوق ما دويت وأنا يا مركي الموضوع عن كشر كير يدمركم ما تشعلوا شعيلكم دمركم مهين معها شعيلكم رجنا مهين معها وحأصل كوادين ولا أنت اللي وقع على صاوي وحأصل كوادين وان مقلام مالمهن دن ويسو قالا أبو طلحة ونفسه بو أهان شري أنك الدمر كنو هيلين شري لكن هذا الرجل وشان شيرا إلى أبو طلحة الدمر كوشان شيرا أريد وحيقوتي أفلقادو ليش؟ لأن عدالة إذا الضريسة وحات الماما يسألنا الدين كشقيرين وفيرسو إنا واحد كشقيرين الدين أهين حلقة يا با قبلنا سلاسل إن لوجد جوالي واي سؤال شقاك أيد أرد ولا فهم سما ركبة وحيكونين أبو طلحة والدبر ركب الدبر كوشن شينا مسألة ساس معها مسألة مسألة دين مسألة مسألة مصلحات هدي قف والبلد إذا وينه رال النقضة الدين بعد قميصة ومدين بتشوقيسة هديها وينكو دون أيام أبو طلحة محاضرات كيسين كل الرال جلسوا بينالا نقنيا واحد شيء الدين ما هذا الرجل دونيان محاضرات إن الرالي جلسوا بين بشيء وحن شيء ووحن أنا الدين وأقانه ووحن أنا آمن سنة هاي إن أنا الظلم السمائي وأنرك حقه هذا إكسلو أنا الدين الآن تريدوي آخر إذا أخذت كتير مركورت أجاده وحن شيء والدين لكن قبلنا مسألة معينة كان يستحضر ما يلا كمتى هاي ما دين هذا يقولب كاسن كلام نقاشنا أنا ديار دين الله رجعنا وصلوا كله ولا فهموا مرينا السلالة وحنو براروتشنا يا وحلقيها مرق قاركو قف إنه الدم كله عسوي سلوجين دم بيجا سلوجين يا دكتور إنه كله عال وحن ربا مرق إن أنا نه قبلي وحن كويري نكاجا هبل بالي صماها إن أسبوع سنة سان قرمة وقعت وحيت والله مرق أنا الشكان صدق بالوقعت أو ده أي شيء waxaan ku uri miskiin oo horeyba obaada ogeyn miyaa maya oo ma taqaana oo inuu looxul maxfuudka ninkaaga xaas kale oo ugu garab qoray maba aadan ogeyn miyaa markaasay tiri maya laakiin hadda ilaahay wuxuu ogaa intuusa samaawaadka iyo dhulalka abuurin 5,000 oo sano ka hor haye inuu ilaahay magaca gabadha agtaada ku qoray ma dulmi baad u aragtaa
acuudu billahi ma ilaahay ba dulmi qorobay dhihi kartaa ma waxaad u aragtaa in adiga la xukumay in qofka lagula guursado inuu ilaahay xadgudub ku sameeyey waa maya ma waxaad leedahay hadda ha laga tirtiro ma waxaad leedahay seed adiga ninkan ugu raali noqotay adigu ahaantaada in laguu qoray ayada si aad ugu raali noqon weyd in loo qoro masaladu waa mas'alo diin dumarka qaarkood waxay dhahaan abu talxa adigaba hal xaas baad qabtaaye maxaad nimanka nooga waali markaasaa u hadlayso annaga waxaan ka hadlay waa diin ogow waa meesha iska afgaran la'nahay war waxaan ka hadlayna waa diin fankixuu maa taaba lakum min annisaa'i mathna wa thulaatha wa rubac fain khiftum anlaa tacdiluu fawaaxida war waxaan waa diin nin walbana looma ogolaanin inuu guursado cadaalad baa la rabaa laakiin hadday timaaddo ma qadarka ilaahay baad aduu la dagaalami oo hadday timaaddo ma reerkaagaad u dudumini middaa wey midda la doonaya in caqli masalada lagu eego raggana markaa masalada guurka aan ka hadli doono mar labaad baan ku soo noqon doonaa masayrka dilaaga ah waa masayrka dumiye reerka raggana waxaan leehay war markaad guursanayso qodobkaa ugu imaan doonaa iska sug anaa mar labaad soo noqon doonee fahamka waa qodobka tobnaade faham xumada qaab xallinta khilaafaadka wakhtiga goobta iyo qaabka qodobka in dhagaha u furtaan baan rabaa waxyaabaha reerahayna dumi waxaa ka mid a qaabka khilaafaadka loo xalliyo ma naqaano waa la iskhilaafay carruurtii dhexdooda la isku buuqay odaygii waa dhaqaaqay islaantii way dhaqaaqday waa dhammaatay war sidaasi geela looma arooriyo maa haakada tuuradu libil sidaa geela looma arooriyo khilaaf hadday adiga xaaskaagu idinka dhexdhacaan ha xallinina adigoo gaajaysan adigoo daallan wakhtiga qabowga badan uu jiro wakhtiga kulaylka badan uu jiro wakhtigaad xanaaqsan tahay wakhtigay carruurta joogaan iyo wakhtigaad musqul u baahan tahay intaa midna ha xallinin waxaad u baahan tahay 3 arrimood si fiican dhagaa u fura wakhtigaad xallinayso intaa aan sheegnay wakhti aan ahayn goobtaad ku xallinayso waa inuusan qolka jiifka noqonin qolka jiifka shaqooyin kale u yaalla jirkaa lagu nasiyaa oo maskaxda lagu nasiyaa laakiin qolka jiifka inuu noqdo maxkamaddii heeg ku taalla inuu noqdo oo mar alla markii la seexan laaliya toos hadalkaa maxaad u tiri ninkaa ma seexan karaa islaanta ma seexan kartaa qolka jiifka waxaa loogu talagalay in lagu nasto xaggee lagu xallinayaa koog fadhiga meel beer ah meel bad ah hoteel meel khaas ahoo labadiinna abaa lagu xallin taa waa goobta waxaa leeyahay carruur ma joogaan ma cadhaysnid waa cadhada waa kaa deg ma gaajaysnid musqul ooma baahnid kulayl qabow badan ma jiro kulayl badan ma jiro dhexdhexaad baa la rabaa jawiguna waa inuu yahay jawi haadiya qaabka loo xallinayo waa sida soo socda qaabka loo xallinayo waxaa weeye horta dikrul jafa bacda safa jafa wax la soo dhaafay ninka dib ka keena asagaa daandaansiga wada horta waxaan aniga adi hore oga wada hadalnay dikrul jafa bacda safa jafa waxaan aniga adi ka soo heshiinay soo celcelinteedu adigaa gardarre iyo daandaansi wada xagga u dhig amaa cilladan hadda taalla mas'aladan hadda horteenna taalla 2 arrimood baa idiin sheegayaaye ragga iyo hor fadhiye gabdhihii nama hor fadhiyaane jawaabteeda isiiya inaan dhaho in badanna waan kula hadlay waad madax adag tahay arrintan arrin aan u dulqaadan karaba ma aha tani waa taan ku kala tegi lahay mana yeelaya arrintaa maxaa saa ii tiri taa waa mid ii sheega radul ficliga qofka i hor fadhiya ka imaan kara ayaa inaan dhaho xabiibtii markaan eego booskaad iga joogto iyo saan dumar oo dhan kaaga soo xushay iyo qiimaha aad iigu fadhido iyo noloshu inay igu adag tahayba adiga la'aanta intaasoo arrimood markaan fiiriyo hadalkii aad haddaay igu lahayd anigu kuuma quureen inaan ku dhaho labadaa kee sax intaa ay sheegayso maxay dareemaysaa gabadha aad qaabka oola hadashay oo aad ku tidhi markaan qiimahaaga arko darajadaada markaan arko meeshaad iga joogto markaan arko
يعني سانا كاجمر من مركان أركو سماها هذا الكأدي قلت لي أنا كوما قورين رد الفعل كي ما أنكره يتيهره سوس هذا بكل دون قاب الله قاب كأن ريرهن وحل إنه هدانا أقولين أنا يا ريرهن قاعمين لكل دمين تاو هذا كاسر وقلب السجن مهيمة ويان قلب ككله دنبية إيو توبة الآن ريرهن رير بدن وحد دنيا معصية جورجة تعالى ذنوب تجورجة تعالى إن لقيت توبة كيريني أو أي صلاة الآن تكوكتها أو أي صلاة الآن تكوكتها أو معصية جورجة تعالى أو حنله أو إسحاقرد له أو إسياسد له أو لقيت فوق يا إلهي دين تيسا إيا أرادت جورجة تعالى إيا قلبك جورجة يا الله إيه معصية فربنا لقيت دعوضه أما لقيت جيستو شيطان بجوري سوق ليه سلا درادة جوري دونه يا إنه بدبادو وحتكون بدبادي كرتا إلهي منهج كيسة هي كتاب كيسة هي الصلاة هي الصون هي خير هي بريو هي عباده تاسد تكون بدبادي كرنا قلبي يعني ما نظيف نقنية وببصيره إن شاء الله قلبك لا يتبناد بوقة سوحنك جوريه النكدح قريه نبوق بدن بياله بوق معاه كان horta su'aal bad weydiinay culmalay walaalayaal ilaahay darti iga jawaaba adiga iyo xaaskaaga maxaa isku buuqaysan ayadoo 20 jir aad guursatay adiguna 20 jir baa tahay aye arrin baa idin ka dhaxaysa hore isu soo barateen aqdi baad kala siixateen go'aanna meel idin yaala war wax isweydiiya laakiin buuqa maxaa keen ilmo yar oo dhashay ma aha gabadho adiguna ma aha gabadhay wiil yar oo dhashay ma aha laba qof oo waaweyn baa sooma hadday wax khaldameen maxaa la iskugu buuqi oo la iskugu qayliyi oo xataa la iskugu gacan qaadi markay qaarkood ilaa uu waddankii meesha boolis yimaado oo nidaam yimaado waay maxaa ka helaya anigu xal baan idiin hayaa islaantaadii adiga isku buuqina yaa salaam oo maxaa iskugu buuqaysa caawa go'aan gaadh islaantaada soo doqon ma tihi haddana caqli badan markaad doqon tahay waa adiga isdhaga tiraya markaad caqli badan tahay xaaskaa intaad la fadhiisato qaabkii hadda aan u sheegayna wax oga dhaadhici xalay muxaadara idiin dhigay ku saabsan waalidow ma askari baa tahay mise mucallim qodob waxaa ku jiray ah haddaad xusuusataan ilmahaadu khalad walba oo uu galo waa fursad aad wax ku barto yaa ila xusuus intiina yaa joogay xaaska ilmahay ka mid tahay marka wareeda xaaska ku qayliyayso eed ku buuqayso ilmahaagii bay ka mid tahay saa daraadeed khalad kastoo xaaska u gasho maxaa la doonayaa inaad ku noqoto fursad aad wax ku barto fursad aad oga faa'iidaysato fursad aad ku wada fariisataan fursad aad ku wada niqaashtaan fursad aad wax oga dhaadhici su'aal fahmo malaynayaa marka buuqa iyo qaylada maxaa ka dhasha caruurta tarbiya xumaa ku dhacda caruurta kalsooni xumaa ku dhacda xataa gabadha weyn ee 17 jirka ah 20 jirka ah ma jeclaanayso guur galabta waan ka sheekayn doonaa dhalinyaradeenna guurka waxaa ka hortaagan in badan oo ka mid ah waalidiinteenna guryaheena dhibka ka taagan gabadhu waxay leedahay hadduuba guur sida yahay aan ka guur aan kala aado ma tamisma ninba hadduu aabbahay oo kale yahay gabarba hadday hooyaday oo kala tahay taas ku buuqay 4 saac oo isdilay 4 saac gabadha u xiisaysa inay guursato waayo wiilka u xiisay inuu guursado waayo waxa idin sheegaya lamaanaho caruurtiina u daneeya xataa gabadhu markay ku soo kortay guri buuq iyo qayle ka jiro waxay aaminsan tahay sidii gabadha tiri hooyada iyo aabbahay mar alla markay isu xanaaqaan mindi ay isoo qaadan jireen maalintaan guursaday waxaan isiri marba ninkaasi isuri maysaane marka mindi yar baan soo gatay waxay tiri barkinta hoosteeda soo gashaday ilaa aan la yaabay ninkii si ugu soo dhawaaday oo igu sheekaynayay oo igu qoslayay markaasaan dareemay bay tiri inuusan dagaal badan jirin يعني اللي هو يدي أبد أو ضيال كده حيوم بيركي شفت قبله قلبك وقلب مهمة بوق إيا قيلة أنقريين كدينا قلب سحوتنا هذا ده جاي يسألوا مالي أمر كتاغلين ترجع يا مدحلي قدو مركب خيره إنه وحاب بربري لما داخل وكل اللي أمر كتاغلين ترجع أنا جانينا الرجال قوامون أنا إري يا إيجاد بهالله أنا هجانك هيا يا إيجاد بهالله الرجال قوامون وارون آيات الرجال قوامون ألا يري لكن ماشي أدتشيليس آيات وإن أي مناسب قطعي آيات ماشي أدتشيليس وإن أي مناسب قطعي حاجة شفكوا قراء عنيسا
وقال الرجال قوامون أو إن حريص النبي عليه الصلاة والسلام أو خيركم لأهلي صح أو كان في مينة أهلي أو نبي كفتن كيسي إيه عيارتيسي إيه نحريس إيه أورتنكي وهو يدنا عايشة ولبر التميي أما لا أورتمي أوي تلك بتلك والنبي عليه الصلاة والسلام أنس بن مالك وحوليه نبي قعنتي سولي ولي قف دمر حتى متهاون أو كمدعي حتى نرباحه حلا ياضي nin deerisha gabadh naga guursaday Soomaaliya uu dilaa way noo soo dacwatay shaqo baroodo waa taqaanaan ani abaroodo noo soo dacwatay ninkii baan wacnay waxaan war gabadha maxaa u dishaa ilaahay quraankiisa ku talaabi dumarka in la laayo wadribuhunna quraanka soo lagu dhaqmo ma waa sax yaani fahamka noocan ee sidan u qalloocan ninka kaliya ha u malaynina dad badan bay ku qalloocan tahay aayadaha quraanka ha wuxuu ilaahay soo ma dhihin soo quraanka lagu amal falo noomida sheegay حاباني هدي وضربوهن هذانا ساعات الدليل سين أبو عمل فريق بوليه هل كاسي باش كتاعن فاهم وين ديرش يا أسأل فسرت مركب وحاربنا رجوا لجيسة الضربة كلها يا رجع نمضوا معها أضيق دليل معها أو أضيق معها أو دمدملين معها أو دقدقلين معها أو رجع نمضوا هذه عضلاتها إلى الموت الصف وعرورت هذه غير كادو أي كلا جبادان ما هو ولا ليالو نما رجوا دقيسة رجع نمضوا وحول النبي صلى الله عليه وسلم ما كرامة يضمر إلا من نون أحسن موين ما يهانيسته إلا من اللي تم أهانه مكو عليا ما كرامة إلا من ونأحسن ما أهان من كلام كرامة ما يهانيسته إلا من اللي تم أهانه نبي حديث سنة وفر عليه الصلاة والسلام صحابتي قاركود دمر كودا قراعينا هؤلاء ليسوا بأخياركم خيريدي بلغا حيوبي درجتي يا قرادي خيريدي بلغا حيوبي تاسي ورغان له رغو امر كتاغلينتا رير كوما دسمو سوري سلامه دمر كان هو كدبا دمر كان waxaan leeyahay dumarkina madax adayki la dhigi jiray dhagax hadii la tuujiyo waxa ka iimaanaya dumarka madaxooda wuxuu noqday dhagax waxaan la yaabay arrinka nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay haweentu haday shan waqti tukato haday shanteeda waqti tukato bisheeda ramadaanna soonto xumaantana ay xubinkeeda taranka ka ilaaliso ninkeedana ay maqasho waa maxay ninkeeda ay maqasho waxa laga wadaa anu waxaan la yaabay dumarka waxa dhibka ku keenay inay ninkeeda ku dhaxdo haduusan macsi amrin habiibi haye taawi mid jannada ku galayaan laakiin dumar ba waxay moodeen ragga noo cabiidinaysaa رجبات نوع عبيدين إيسا سير رجل لجوجو عبيدين يا إلهي وحي يسمعنا خيرنا نبي سيد عليه الصلاة والسلام دمر وامد أو خير كبدن وامد نكاد ومركو أركو قلبي جيس وفرح كدر صما خير محاولا متاعنا الدنيا دورنا وحلو سوكوبي وخير متاعها المرأة قبل الصالحات سيكون غن فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله لكن دمرك قيب وحكون جرا أفكار إبليسية هي أفكار شيطانية أنتو شيطانك وكو وسواسيو لا يسمح لي لنا أنا كمحانيك اللي يقول عبيدين يا من كان الجنة كل سنيسة أما مقل أما هم مقل أما فهم أما فهم أما يال أما هيال علي يال خضارة أنا وركي وعد يا سيدي لما أنا سيدي وركي وعد يا هاي جنة واحد كون قال له دوان من كاغا يا جري النبي محمد بن صلى الله عليه وسلم وحاربها قبلها إنه مدحينا تشلعية أو نكاغو هدو وناكو ويرو سمعا وطاعا هل كها آذن سمعا وطاعا أصيغا كو في السحي دورة مكة لكن مدح عليك دمركة إيا أمركو تاغلين ترقع لبضانا ريركو ويد كدو معا قضب كافر تبنات دق لمانها إفر إيهو هواكي وتنهرو سو شاقناي waxay garan weyda maxay dhihi ifur ninkii muxuu dhihi waa ku furay marka maxaan soo qaacidayno soo qaadanay ifur macnaheedu waa maxay faham ku celiya hadii ifaham wadilka qodobka waa saas weeye dumarkuna yeena sabab la'aan abshir dumarkuna sabab la'aan lama ogolo waciid baana ku soo arooray inay dalqad weydiisaan qodobka 15 isxaqirada lamaanaha
محاتها من نبى اسموديسا ولا حقيريا مناك في عم اسموديسا وان كوغو خساري وان كاتغي وان كوغو سو قلدمي ريدا ان ان بدن انيga ila talida ka maqlo ها وهذا الحل او خربان arrimahaas waa isxaqiriyay qodobka 16aad social media internet adduunka snapchat-kan alaabtani reero badan bay dubisay reero badan bay sababsatay shaydaan weyn baa ku dhex jiro lagu kala mashquulay shan daqiiqo deemal la yiraahdo ka gaarsiinaya kulligood waxaan leeyahay guurka qaybihiisa qabsada waxa reeraha duniya guurka loo yaqaano guurka khiyaanada qarsoon kow guurka loo yaqaano guurka duulduulka labo guurka loo yaqaano qasabka iyo ciilbaxa saddex iyo qodobka loo yaqaano maxaa la qasabka iyo ciilbaxa iyo midka la yiraahdo argosiga halka wax baa iska keeda marsan waxa weeyaan waa guurka khiyaanada qarsoon iyo guurka duulduulka iyo guurka qasabka iyo guurka ciilbaxa iyo argosiga xigaliin midkan khiyaanada qarsoon waa wax nagu soo badanaya waayahan dambe nin baa reer buu guursanaya inuu mas'uuliyad qaado ma doonayo gabadh baa nin guursanaysa mas'uuliyad ma rabo waxa laga yaabaa dhalaal yar oo adduunyo in la rabo in matqana afka la soo mariyo way badan yihiin arintaas qodobka labaad waxa kamid ah duulduul waa maxay ragga qaar baa moodaa gabadh kasta oo arko in asaga loo diyaariyo gabadha ma la qabaa oo maxaa ka galaad waxaanu gabadh kasta oo qurux badan maada lagu sameeyay ma garoob baa mise waa garoob ma la qabaa may shukaansigu ku bilaabay cabaar buu meesha joogi waa tagay lamaba hayaba uu soo furay warqadeedii meel kale uu tagay xaafad buu tagay gabadhan maxay gabadhan waa ila hebel oo miyaa la qabaa may shukaansigu ku bilaabay dhakab buu ku siini waa tagayaa haddana waa furaya war iska fiiriya waa mutca bay imaanaysaa mutca waa shaqadii shiicada marka dambe ku dhacaysaa adiga su'aal baa ku weydiinayay yaa ku amray yaana ku baray yaana ku sheegay inaad gabar kastoo qurux badan maada lagu abuuray war gabdhaha muslimaadka ku ciyaari gabadhaadaba in lagu ciyaaro ma rabtid haddaad mas'uuliyad u guursanayso u guursa gabadhana waxaan leeyahay dembiga waa idinka aad nin walba iska yeelaysaan iska hubsada ragga walow raggu been badan yihiin oo ay gabdhaha in saraacaad ku ridaan oo ay dhahaan anaa ku caddaynayo ku madoobinayo kalar iyo alaab ku marinayo marka dambana meelu ka baxay la waayay haddana inta awoodiina iska kontaroola ninka guurka duulduulka la yiraahdo way kan kale oo qasabka waa taqaanaan laba faryarood mid doora waa ku wala dhaha way oday waayeela ayaa dan loogu xiranaya lacag ama madax ama wixii waa taqaan arintaasi gabadh yar oo miskiin oo 12 jir ayaa odaygii ma taqaanaa ii keen dhakab lagu siinaya guurka ma raaga asna inta badan waa sidii kartaa qolo ilaahay u barakeeyo guurka ugu dambeeya waxa la yiraahdaa guurka ciilbaxa iyo argosiga muxuu yahay laba isku xumaanaysa markay isku xumaadaan ayaa la isfuraya hadda ka hor baa su'aal la weydiiyo la yiri maxaa guur furiinku ugu badan yahay Soomaalida waxaan ku yiri gabdhaheena Soomaalida suuq leh adduunka intiisa kale gabdhahooda suuq ma leh gabadh Carabeed hadii la furo lama guursado Asian hadii la furo lama guursado ilaa guur misyaar kale iyo guurkan qofsireedka anaga oo naqaana ma ahane guur calana lama guursado gabdhaha Soomaaliyeed adduunka laga guursada kaaga daranta waliba markay gabadha dadka qaba iyo ayadu kala qabiil yihiin khilaafku markuu dhaca shukaansiga lagu bilaaba annaga ka korba ka kari weeyay reer hebel yaa ku urso ku ilma adeerta baa ku joogtay waxa waa shukaansiga bartaas lagu sii bilaaba ilaa mid ninkeedu xanuunsan yahay yaa mid soo maray markaasuu yiri insha Allah wuu caafimaadi doonaa martaana hadduu dhintana anaa ku joogo ku yiri kadibna ninkii baa dhintay ayadoo ooyisa mid kala soo maray markaasuu yiri iska sabar waa la dhimanayaa anaana ku joogo wariga tagbeetir waa laga soo ka horreeyay kii hore ma garanaysaa mushkiladda markay jirto waxa weeye hadda waxaaba nagu soo badanaya gabadh cidda ku jirto oo shukaansanaysa wax hadda cidda ku jirta ogaada gabdheenu say suuq u leeyihiin marka waxaan leeyahay guurkaasi ciilbaxa la dhahayo saadi gabadhu ciddada uga baxdaba ayadoo ninkii hore ku xumaynaysa ama ninku asagoo gabadhii hore ku xumaynaya ayuu markaa muxuu guursanayaa guur la yiraahdo guurka
ciilbaxa iyo argoosi guurka asagana ma raaga insha allahu qodobka kale waxaa weeye qaxootinimada iyo dagaalada waxyaabaha reeraha burburiyay ku jiraan qodobka kale balwadda sigaarka qaadka shiishada iyo wixii iyo fadhi ku dirirka iyo kubadda waxaasoo waa qaybo badan oo nooc balwadda kamida nadaafad xumada waxa weeyaan xagga shirka iyo guriga iyo caruurta intaba waxa kaloo kamida isha waxa u jeeda maya caaqnimada soo ma ogidiina culimo allah reero badan oo dumaya wax kale ma haysto wax kasta waa diyaar laakiin islaamtu ama ninku labadu way habaarayin hooyadii adigu nin habaaran oo hooyadii soo habaartay naag ma qabi kartaa adigu gabar habaaran oo aabaheed ku soo yiri adigu ma qabi kartaa ilaaha ku dhaariye sheekhow sadaqa kasta waan bixiyay sheekhow sadaqa kasta bixinay wax walba sameeynay haddana dagaalkana waa joogta 4 saac waxaan leeyahay reero badan oo buuq ka taagan yahay oo garan la adhiin cudurka ana caawidii sheegaye qof loo hooyada dib ugu noqo aabahana dib ugu noqo haday dhinteena sadaqa u bixi haday nool yihiin maxaa la yiraahdaa ii ka maxay ya marka hooyo habaaran iyo aaba habaaran reer ma dhaqan karaan arinta la socdo insha Allah taala iyadana qodobada ugu dambeeya waxa kamida mas'uuliyadii ragga oo luntay markii meelaha la yimid qodob kale waxa weeyaan gardarro garab og oo islaantii shalay markii la isku xanaaqo intay reerkoodii tagto dhibaata la soo siin jiray muqmada iyo oodka cakeeri jirtay hadda haddii mataqaana la isdaaro ayadana meel kale daari taasna waxa weeyaan waa mid sixirka iyo isha reero fara badan oo kala tegaya cudur kale ma haysee waa la ileeyay ayadana taasna in lagu baraaro waa muhiim waxa ka gacan qaadka ayaa kamida waxa kaloo kamida jacayl bug ah beenbeen ah jacayl bug oo beenbeen ah oo la sheegayo maanta telefoonkaasi khayaano fara badan baa ka socota reero isqaba telefoonkan baa duminaya ninkii cid kalooba la haystaa weliba ragga ugu badan xaaskiisii oo joogto shukaas ku jira dulmiga xageed ka keentay xaaskaaga og sariirta wallaahi inaad ii sheegayni oo tiro aad u fara badana dumarka dacwada waxaa kamid a sheekha anoo jiifuu moodaya inaan jiifo xaggana islaam buu la sheekaysanaya fa adiyadaa ku ag jiiftee iimaanka allah kaa qaadi waaye ma iyadaad garan laada ayadii xaqeedii aw sariirtii bay kula jiiftahay war iimaanka keensada oo ninka guursanayo mas-uuliyad u guursanayo raganimo u guurso laakiin waxa qujuraafka ah ee mobilkan aad nin walba hadda mobilkiisa kuudu ku xidhay carwaa ninka intuu furo xaaskiisa siiya maxaa la qarqarsanaysaa iisha waxa la qarqarsanaysaa mobilkiina maxaa ku dhex jira maxaa la qarqarsanaysaa intaad furto car xaaskaaga u dhiib maxaa dhiboo ku haysaday kalsooni xumada xageed ka keentay waxaan jirin baa ku keenay mid baa mataqaanaa laba xaas buu qabay kaasaan ku khatimaya laba xaas buu qabayoo sheekh maxamed shaxsaan baan ka dhegaystay bilmunaasaba arrintaas youtube ku jirtaa marka gurigu imaaday islaamihii mid kamid a telefoonkii halkaa kaga too musqushu galay tii baa soo wacday kamay qabanina way fiirisay markay dhigtay u qortay waxay tiri waadna dhiftay hal dalqad baan kugu furay telefoonka yaa leh odayga baa leh messagekina way tirtirtay danteeda iska raacto odaygeeday soo dhaweysay waa la iska joogay odaygii asagoo de islaantii habeenkii dambe habeen buu habeene waaba islaantii waa bug maxaa naga soo doraysa annaga maxaa nagu soo ganaaca annaga maxaad naga rabta annaga nooga noq albaabka maxaa kugu dhacay maxaa kugu dhacay bal shaydaanka iska naar war kadibna war soo messageka adu maa soo dirin wallaahi kitaab 3 kitaab oo quraan mar tawraad injiili furqaan inaana soo dir marka dambe xaqiiqada yaa furay islaanta kala furtay marka waxaan doonayaa inaan dhaho mobilkani kalsooni la'aan buu reeraha dhaxdooda ka abuuraa ragow aad u dhegaysta weliba dhalinyaradu i dhegaysta dhalinyarada aad moodo inuu iimaanku ka tegey qaar gabdho yaryar baad qabtaani allah idinku soo gabdhihiina oo gabdhihiina qurqurux badan arka oo xidha waxaan yaryar idinku soo yaacaya xidha baabka ka xidh wala baa soma gabadhaada ilaasho reerkaaga ilaasho mobilkaaga tuug ma tiide u dhiib haddaad sheekh tahayna su'aalo lagaa weydiinaya ka badan miya haddaad macallin tahayna ardadii macallinka ayaa mataqaanaa ii keen wax kaa weydiinaysa miya maxaad qarsanaysaa aniga maanta mobilkayba iga haysaaba mobilkan ku kacsanahay muxuu mobilkan ku dhex jira ood xaaskaaga aad kala qarqarsanaysaa ii sheeg matalan somaha labada qof inay shafaafi isu noqdaan oy is aaminaan oy daacad isu noqdaan oo xaqiiqo isu noqdaan matalan somaha
waan ku celaya ninka raganimo isku hayo mas'uuliyad qaadi kara baabka furiya kii kala sooma aha baalka ayaan reero marka jacayl bugaan u bixiyo asalla subhanahu wa ta'ala ilaahay waxaan ka baray inuu darsiga nagu anfaco barakallahu fiik jazakallahu khayran